a child that will pray for you after you're gone. That's a beautiful legacy. A child that would raise his hand or her hands up and say, oh Allah, forgive my father. Oh Allah, forgive my mother. That is the legacy you need to leave behind. Because nobody can inherit that. That will be what? A perpetual sadaqah for you. Waladu salih. So today, inshallah ta'ala, I want to ask myself and everyone, what kind of legacy am I going to leave behind? And that's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam says in an authentic hadith, when you die, it will be only for two cases. إما مصطرح أو مصطرحا منه كما قال صلى الله عليه وسلم. You will either be relieved from this earth or the earth will be relieved from you. In other words, you will be remembered. So, the Prophet ﷺ said, it will either be two cases when you die. You will either be remembered in a good way, and people will always talk about you, or nobody will remember you. Nobody will remember you. So which way do you want to take? That's an authentic narration from our Prophet ﷺ. Now, our Prophet ﷺ said also in a hadith narrated by Tirmidhi, he says, أعمار أمتي ما بين 60 و70. The lifetime of my people, I want all of us to understand this hadith, the lifetime of my people will either be between 60 to 70. And few of them will pass that age. So if we take that hadith into consideration, I want you to think about this. Let's say you have 70 years in your life. If you deduct 15 years from that 70, because before puberty, Allah subhanahu wa ta'ala will not hold you accountable. You have how much? You have 55 years. And out of the 24 hours Allah subhanahu wa ta'ala gave you, 1/3 of that you will be sleeping. So 8 hours out of your 24 hours, you will be sleeping. And the other 8, you will be working. So you have only 8 hours. This means 1/3 of your lifetime you're sleeping. This also means 1/3 of your lifetime you will be working. You have to pay your bills. And then they say, if you have to go to your work, to get ready for your work, drive and come back with all this traffic, it takes you not less than 1.5 hours. Which means 2.5 years of your lifetime will be spent by getting ready for your work, driving to your work, and coming back to your work. Finally, they said the human being has 7 or 8 years in his lifetime or her lifetime. What are you going to do with that? Marka waxaanu ka hadalnay su'aasha aynan isweydiino raad noocee aan rabaa adduunka inaan uga tago. So Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kuwa Ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyay ee iimaanka lahow Ilaahay ka cabsada waltandur nafsun ma qaddamat lighad. Naf walbana ha ka fikirto berri waxay horumarsatay. Marka haddaan aabe ahay waxaan rabaa inaan isweydiiyo maxay tahay waxa Ilaahay agtiisa ii yaala. Ma guryo badan oo wadankii ka dhisto ya Ilaahay agtiisa waxay noqon mise ubad iyo awlaad saalixa oo la jihaado oo la halgamo oo quraankooda iyo salaadooda aan kula halgamo sida darteed bari adduunkan markaan ka tago anytime waan ka tagi karnaa. wallahi anna ma ogid maradii cadayd ee lagu duubi lahaa hadda in soo qataalo qof og miyaa jira maradii cadayd ee hadda ani la igu duubi lahaa bari toolan qorsheynayna California ku noqdo hadii Ilaahay ila yaa og inaan ku nabad noqon doono ma Ilaahay nabad geeyay laakiin waxa laga yaabaa qof inuu xisaabto maradii cadayd ee lagu duubi lahaa in hatta suuqa dukaamada ay taalo ma ogid. marka Ilaahay wuxuu ku leeyahay kuwa Ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyo ka fikir balaayadan. إلهي لما هضلي دد لي كافرين. إلهي لما هضلين أو مدهن أيها الناس ضدوا مدهن. إلهي المنافقين لما هضل. إلهي وحول الله هضلي يددك إيمانك له. وإلهي النفتيس سبحانه وتعالى وكم ركع إيمان إليه. كواسا لودي جاي مرك ولا ليه كفكر بالرمح على هالمرصد.
haddii marka aanu moodayno guryo fara badan oo la dhisto iyo hanti badan oo la tabcado in ay tahay wax ilaahay hortiisa wax noo noqon haya, ilaahay wuxuu leeyahay dad kaa horeeya waxay dhisteen guryo kaa badan, qasriyo kaa badan, fooqa kaa qurux badan. kam tarakuu min jannaatin wa cuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim. ilaahay marka ayadda wuxuu ku leeyahay qoom kalaa yimid iyagaan dhexal siinin, adu shaqa ku malihid, maamulka adu malihid, go-aanka adu malihid, ilaahay bal dad kalaa yimid iyagaan gacanta u gelina ilaahay. famaa bakat calayhim asamawaat. ilaahay marka wuxuu leeyahay qof xusuustay iyo qof u ooyey ma jirin dadkaas fooqaqaas ka tegay. yani ibnu cabaas radi allahu canhuma wuxuu leeyahay adan markuu fasirayay markii ay saxaabadu dhaheen ma waxaa jira samada dad looga ooyo, haa buu yidhi albaabaa jira acmaasha saalixa ee qofka mu'minka ah kor marka loo qaado ay aadaan, albaabkaas waa xidhmaya markaad dhimatay. marka sidaa darteed waxaa lagaa miskarayn ama lagaa xusuusan ama lagaaga ooyay samada, taasaa laga wada. dadkan ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay samada iyo dhulkaba cid xusuusatay cid u ooysay male. maxaa marka berri la igu xusuusan doonaa? su-aashaan ku celcelinaya taas wey. haddii marka waxaan nidhi xadiiskii aanu sheegnay rasuulku sala allahu calay wasalam xadiidka tirmidi uu soo saaray uu leeyahay acmaaru ummati maa bayna 60 wa 70. yacni ummadeyda cimrigeedu waa 60 ilaa 70 inta u dhexaysa. xadiiska qeybsada rasuul sal slam wuxuu leeyahay dad yar baa xaggaa u dabamara 70-ka, dad yar iyo xaggaa u dabamara. haddii marka cimrigeenu saa yahay waxaan nidhi qolooyinka cimriga qofka ableeya ama maaragtay kafaarada waxay dhaheen qofka bini aadamka haddii la yidhahdo 70 sanaa la siiyey oo number badan xitaa 70-ka waxaad ka jartaa bay dhaheen 15 sano ee u horeysa, lianna qofku waa marfuucul qalam, qofku waa qof aan weli qaan gaarin oo dambi lahayn. 55 sana kuu soo hadhay soo maa 24 saac ilaahay marka maalinkii ku siiyey 3 meelood meel qofku waxay kaga baxdaa hurda soo maa 8 saac oo ka mid a qofku waa inuu seexdo. labadii meel ee kuusoo hadhay 8 saac oo ka mid a qofku waa inuu xamaasho uu biilashiisa iyo naftiisa uu daba ordo. waxaa qofka usoo haray dhahaan marka maxay 8 saac maalinkii. taas macnaheedu waxa weeyaan 3 meelood meel cimrigaaga waxay ku baxday hurdo. marka 55 sano ee soo hartay 3 meelood meel waxay noqonaysaa 19 sano iyo dhowr bilood. cimrigaaga inta kuusoo hadhay haddii haddana la yidhaahdo labadii meel ee soo hartay meel qofka shaqi uga baxaysa, haddana waxaa go-aysa 19 sano iyo badh oo ku baxaysa qofku inuu maciishadiisa iyo biilashiisa sanad anigu u ordayn. 19 sano usoo haray bay marka waxay yidhahdaan qofku shaqada marka uu diyaar garoobayo iyo inta uu sii socdo iyo inta uu kasoo socdo marka la isku geeyo cimriga qofka waxay la go-daa 2 sano iyo badh. waxaa soo haray marka waxweyn wax 17 sano. haddana waxay dhahaan aabuhu 45 daqiiqo ugu yaraan yuu la qaataa faamilkiisa inta una seexan, ama caruurtiisa ha kala celiyo ama hooyadu dhaabar ha ka kala bedasho. 45 daqiiqo waxay dhahaan marka cimriga qofka waxay noqotaa sanad iyo badh. waa cimrigaaga waxa marka saas u maaragtay u tagaya adoon weli waxba qabsan. haddana waxay yidhahdaan dadka tv-ga daawada maalinkii markay u yartahay saacad iyo badh yaa tv kaga baxa. taasuna cimriga qofka waxay ka jaraysaa bay dhaheen in ku dhow 2 sano. waxay kaloo haddana soo qaateen oo dhaheen dadka taleefanada ku hadla ama alaabtan electroniga in ka badan saacad iyo badh ama text message sheegare ama telephone voice mail dhegeyso ama qof ku celi waqti intaa laga kaaga baxay, iyadana cimrigaagi waxay la go-aysaa bay dhaheen in ku dhow 2 sano. bal fiiri marka cimrigeena soo baxay. haddii marka waxay soo reebeen 7 sano wax gaara 7 sano ka waran haddii fadhi ku dir marka iyaga baxdo. haddii inta aan caruurta la dadaali lahaa oon xusuusan lahaa aayaddii qur-aanka ee ahayd berri maxaa hormarsatay, ka waran haddaan ku mashquulo inaan maanta dhan u kala garqaado dadkan siyaasiyiinta ah ee wadankii jooga ama BBC waxay tiri ama yacni ma xumo qofku inuu la socdo adduunka waxa ka soo halka. waxaan ka wadaa inuu qofku camal ka dhigto oo dad ku colaadiyo oo aad muddo fakaanama arsaaqadiisu halkaas inay gashay oo maalinkii saacado badan uu ku bixiyo. marka ikhwaani waxaan ka wada oo nafteeda aan xusuusinayo idinkana aan idiin sheegayo waxa weeyaan haddii markaas waqtiga yaraan cimrigeena ka soo hartay fadhi ku dirir iyo waxyaabo maaragtay ilaahay hortiisa aan waxba inoo qabanayn ay nagaga baxdo, allah wuxuu oranayaa markaan soo hor istaagno awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaakum an-nadiir. war miyaanaan la ida siin cimri ku filan qof waantoomaya, maanaan ku siinin cimri qof ama yacni leh dhiga wax weeleeya
عمري كفرا وقفك سؤالها نسكو ويديو واقع وكل حسابكم ونفتي سوي ويديو حاجين كإيمن محل لا يأبور حاجين وسقلا ست هذا سؤال سوكم أنا سين بالله كله أو كوما وصل إيمان متكو ديجها يعني قرآنك يعني حديث الرسول صار ضمان وحنا اللي هو مكي معني بحوي عذر دار ملي دوي أحبتي في الله حالي عمر بن عبد العزيز قول لي هذا وحويان إن خليفة المسلمين تأشران يا هبين دن وين يوسوتشي إلا حاسس أي كبق ذلك الإنسان ببضع يقرحان مقاسه وحيوير تأهل كيس يعني المقادير دي كالي الله حطيت محاكو دعي وجواب وين محاكو دعي ضد يدوها مركي الله يريب أخري آيات يا هاي وبدا لهم شر من الله ما لم يكونوا يحتسبون يعني ضد إلهي مركي هوري مادين وحي أي رجينها ينوح كدون إلهي هوري سكاين بالله عليكم كفكر وحبات رجينيسا إلهي وغفور رحيم نعم إلهي وغفور رحيم وحباك وسا ورنا آخره لكن إلهي مركا سبحانه وتعالى هورتي مد وحاد عرفتي بنكي واحد مودي سينا ديغتي واحد كدون يضطي مد آيات داسو كل علنا يا مركا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يحتسبون مركاسو وحيري وحاد وهنت إيغا كيني من الموت طالبه والقبر بيته والتراب فراشه والدود أميسه وهو مع هذا ينتظر فزع الأكبر كيف يكون حاله هذا الأظن معنيه ساسو كل كعل عليني أو وحانا يقف قبري وسوغهي وحانا يقف سريرتي سوأيتاهي عرضة وحانا يقف وهلكي سويهي أبورك وحانا يقف ميشا مكتغ كجرة هدنا السوغية مالك أرقاقها يعني مالك قيام يساعد يديبك يعني قفك أنكهضي وقف ومدى مسلم كو أي تري وحويان خليفك مسلمين تشناد يعني عدالتيسا ورعيسا مركي لارك مسلمين توحيو قارسي حقين جوغنا مركا عليا هذا وليبا ودن كان جوغنا مركا انت مركا إن شاء الله تعالى والدك وقنت وحان روا موضوعي بليرادة إن أن أسو دادقو يعني تنو حياة حسوسين نفتي إذا والدك أو إن إلهي هرتي سواحي إنو يلعن سويدين مركا وحان روا قضب كان إنان كغبحو قد يدى wax lagu dhabarjabo awlaada ugu fiican wallahi ilaahay baan ku dhaartay ilmaha yar ee maanta masaajidka jooga ee dugsiga aad keenaysaan rajada ugu fiican oo qofku qabo waxa weeye ilmahaas inay ku tukadaan haddii xitaa qof sin kalaatan ilmo lahayn in aad ka qayb qaadato tabarucaadka masaajidka laana waxaa tahay qof barbaarinaya jiil muslimiin tahay marka uu qof walba leeyahay masaajidku waxa uu baahan yahay maanta fundraising masaajidku waxa uu baahan yahay musqushis masaajidka ee qofku intuu gacanta jeebka kaliya u yiraahdo ubadkaas islaamka ee ku meesha ku korayo wax ku baranayo yaan ma aragtay rabaa inay ajir iga siiyo waxaad ka fikirtaa ilmahaas xalaba ilma saalix aynu bari noqdo ilmo waxa laga yaabaa hogaamiye meesha inuu ka soo baxo ilmo caalima ogo waxaad ka qayb qaadatay taariikhdaas marka taariikhdaas ka qayb qaadatay $100 masaajidka siiso wallahi faqiirna kaama dhigiso taajirna kaama dhigiso laakiin waxaa laga yaabaa inay tahay tigidkii aad jannada ku aadi lahayd waxaa laga yaabaa inay tahay tigidkii ilaahay adduunka kugu barwaaqayn lahaa ma ogid waayo rasuulku sal lla ly slam hadduu noo sheegay in ay gabadh waraabisay ay janno ku aaday weliba ma aragtay gabdhahan la yidhahdo jirkooda ka ganacsadaan isaas oo kale ahayd riwaayadaha qaarkood si sheegayaan ka waran hadday jannada ku aaday maxaad u marin qof muslina oo awlaad saalixiina awlaad meel lagu barbaarinayo marka ka qayb qaatay ikhwaani marka yaan marra la dhayalsan. So having said that, I would like to talk about the topic of the youth because I'm looking at a lot of children, mashallah. I would like to present in front of you one of the verses of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a brief conversation between a messenger of Allah and his son. And I want all of the children, all of you to pay attention. If you have an iPhone, stop playing with your iPhone. Because we're talking about what Allah subhanahu wa ta'ala said, and for you to listen that is honoring the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah presents in front of us a conversation, a brief conversation between Prophet Nuh alayhi salam and his child, a father and his son. You know, every father wants his son to succeed, every mother wants her daughter to succeed. So Prophet Nuh alayhi salam calls out his son and he says, Ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Oh my father, oh my child, oh the child that I cherish it and raise it and love it all of my lifetime. Come and join us. Come and embark on this ship. Come and board on this ship.
a ship which then represented La ilaha illallah. Now, before we proceed, I want you to think about this. Young brothers and sisters, pay attention. This conversation was not happening on a breakfast table, but this conversation was taking place at the time when Allah subhanahu wa ta'ala wanted to destroy an entire nation. I mean, think about that. This was a moment when Allah subhanahu wa ta'ala wanted to destroy this nation, usher them into their grave. Because Allah says in another verse, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. And another verse Allah also says, إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. Now just raise your hand, young brothers and sisters. How many of you have seen tsunami? How many of you know tsunami? Just raise your hand. Nobody knows tsunami? Yes, we know what it is. We know what it is. I'm talking about young brothers. You're also young, don't worry. So this was a moment when tsunami was coming from every corner. Think about that, tsunami coming from every corner. Killer waves coming from every corner. People are fleeing. Mountains are being crumbled. This is the scene that's happening here. And I want you to visualize this scene. I also want you to think about that. In spite of that, there is a ship or a boat in the middle, and Prophet Nuh alayhi salam is on top of that boat. Along with him, community of believers. But his son is just standing outside. So he wants to save his child because he's a father. He's a father. He wants his child to succeed. The same way, young brothers and sisters, your parents brought you here to learn Quran, to learn about the words of Allah, because they want you to succeed in dunya and in akhirah also. So he says, Ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Daddy, come and rush and be part of us. Don't be with those who reject the message of Allah. But the son responds in a very interesting way, in fact, very funny way, and he says, Sa'awi ila jabali ya'simuni min al-ma. Daddy, don't worry about me. I know what I'm doing. I got this. I will climb that mountain and I will be safe. So, young brothers and sisters, I want you to think about this. This son, even though his father was a great chosen messenger of Allah, but he thought that he knew more than his father. He thought that he knew what's happening more than his father. He thought that he understands the environment, the danger, more than his father. And this is very interesting because sometimes, just because your father has an accent, you think that he's dummy. I mean, you don't say that, but something in your heart thinks like that. Just because your mother doesn't have a Facebook account, sometimes you think that, you can outsmart her. But Allah subhanahu wa ta'ala is proving you wrong here, right? Yes, Jazakallah khair. Allah subhanahu wa ta'ala is proving you wrong. So Prophet Nuh alayhi salam wants to save his child, and the child thinks that he knows more than his father. So he says, Sa'awi ila jabali ya'simuni min al-ma. Daddy, don't worry about me. I know what I'm doing. I'm grown up. I will climb that mountain. Don't tell me what to do. But then the father responds by trying to educate his child, and he says, La asim al-yawma min amri Allahi illa man rahim. Oh my child, don't be fooled. What you're looking at is not an entertainment. It's not a Hollywood movie. It's not a Bollywood movie. This is a punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And you cannot save yourself unless Allah subhanahu wa ta'ala saves you. Do you understand? Do you see what's happening here? A father who's trying to save his child. The son thinks that he understands more than his father. But the father tries to give him a little bit of, wisdom and hikmah and says, no, it's not what you think. I know you think you're smart. The point here is, your parents, just because they are 1 decade or 2 decades older than you, they know the environment more than you. The other point I would like to incorporate here is the story of Prophet Yusuf alayhi salam. And there is a reason, because there are 2 things, young brothers and sisters, that can destroy your dunya and akhirah. The environment and your friends. So now we proved that your parents understand the environment more than you. And I want to talk about how your parents can understand human being more than you.
Because your friends are at the end of the day human being, right? So think about this. Prophet Yusuf alayhi salam wakes up in the morning, and in the morning at the breakfast table, he talks to his father. He shares with his father his dream. So he says, يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Oh my father, last night I had a dream. I have seen the stars, the moon, the sun, all prostrating to me. Now, how many of you had a dream last night? Just raise your hand, young brothers and sisters. I just want to say, Jazakumullahu khairan, all of these beautiful youngsters. How about the brothers? No dreams last night? Okay, how many of you share your dreams with your parents? Again, my favorite group, Jazakumullahu khairan. So you guys don't share your dreams with your parents? It's good. Share your dreams with your mom or your father. Because Prophet Yusuf alayhi salam, alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, is sharing his dream with his father. But immediately his father says, Ya bunay, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Don't share your dream with your brothers. Why? فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. They will all gang up against you. They will harm you. Did they harm him? Just raise your hand. Yeah. What did they do to him? In the well, not a river, in a well. Jazakallahu khair. They threw him in the well. Now, Prophet Yusuf alayhi salam was just a child. He could not understand that one day his own brothers, older brothers, will harm him. He thought that, you know, in the school, when, like I remember when I was a kid and somebody messes my sister, I'm like, what do you want from my sister? So, Prophet Yusuf alayhi salam could not understand that one day his own brothers will try to harm him. Did they do that? Yes, they did. MashaAllah, so you're paying attention. So what we understand from here is 2 points. That your parents understand the environment more than you. B, your parents understand human being, your friends, more than you. And we said environment and friends are the two things that can, destroy your life or destroy your akhirah. So if you hang around with the wrong friends, you might end up, subhanallah, in a very ugly place in akhirah wal iyadu billah. And I will prove you that. I want all of you, again, young brothers and sisters, I'm talking about what a bad friend can do to you. I want you to visualize a scene in Yawm al-Qiyamah, in Akhirah. And I want you to think about someone who is crying and who is biting his finger. When do we normally bite our fingers? Who can tell me? Young brothers. Yeah. When you get in trouble. Jazakallahu khairan. So Allah says, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Allah subhanahu wa ta'ala is presenting in front of us a scene where someone is biting his finger and he's crying. And you know what he's saying? I wish I took my Prophet sallallahu alaihi wasallam as a role model. I wish I never wasted my time hanging around with the wrong friend. He destroyed my akhirah now. This person is crying. This person is biting his finger. Think about that. That's what a bad friend can do to you. Immediately after that, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, Oh Allah, these people of mine, they have abandoned the Quran. Are you with me? Now, who understands the meaning of shafa'ah? Just raise your hand. Shafa'ah. Intercession. Okay. We all, inshallah ta'ala, expect or hope from our Prophet sallallahu alaihi wasallam to give us shafa'ah, right? What do you think if the Prophet sallallahu alaihi wasallam is testifying against you in the court of Allah? Who can win a case against Muhammad sallallahu alaihi wasallam in front of Allah? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Oh Allah, these people of mine, إِنَّ قَوْمِ, this nation of mine, they have abandoned the Quran. They have abandoned the Quran. Young brothers and sisters, abandoning the Quran is a grave sin. If you abandon the Quran, the Prophet ﷺ will testify against you. Which lawyer can get you out of that trouble? Because the brother said, you bite your finger when you're in a trouble, right? So the Prophet ﷺ says, Oh Allah, these people of mine, they have abandoned the Quran.
Who can win a case against our Prophet sallallahu alaihi wasallam? That's why you have to keep coming back and back and back to your duxi. That's why you have to memorize these verses. That's why you have to try to understand the Quran. That's why you have to honor your teacher. Kiss the hand of your teacher. Serve for your teacher. Wallahi, if you do that, Allah subhanahu wa ta'ala will bless you. You know why? Because you are honoring Allah subhanahu wa ta'ala by honoring the teachers of the Quran. You are honoring Allah subhanahu wa ta'ala by honoring the management of the house of Allah, the masjid. You are honoring Allah subhanahu wa ta'ala by volunteering in the masjid. If you see something that's messy, clean it. Take that hasanat. Be selfish when it comes to hasanat. You know, when it comes to dunya, Allah subhanahu wa ta'ala said, don't compete. Don't compete in dunya. But Allah says, وَتَعَاوَنُوا, cooperate. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, be brothers. But when it comes to akhirah, be selfish, because Allah says, compete now. سَابِقُوا, Allah says, صَارِعُوا, compete. Allah says, فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, compete. Allah says, فَاسْعُوا, walk fast. You know, Allah says, لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ, it's a competition. Compete. Allah says, فَفِرُّوا, rush, pick up your speed. See what I mean? So when it comes to dunya, we don't compete, we cooperate. We become brothers, we become sisters. But when it comes to akhirah, we become selfish. We become selfish. If you see some dirt, don't call someone, don't just go and clean. Allah is watching you, and that's your money in akhirah. In akhirah, dollar doesn't work, dinar doesn't work, dirham doesn't work, only the good deeds work. Marka waalidiinta waxaan ka hadlaynay wada hadal Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo inoo sheegay oo dhexmaray nabi kamid ah ambiyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ambiyadiisa waaweyn nabi Nuux alayhi salaam iyo wiilkiisa. Nabi Nuux alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam wuxuu rabay wiilkiisa inuu badbaadiyo xilli cadaabka Ilaahay uu soo degay oo Ilaahay wuxuu leeyahay inna lamma tagha al-maa'u hamalnakum fil jaariya. Ilaahay wuxuu ka hadlayaa sida Rabbi subhanahu wa ta'ala oo dhinac walba cadaab biyo socdo dadka galiya biyaha hamoodin biyaha aan ku dabaalan biyaha markaad aragto iyagoo biyuhu ay iska fadhiyaan wax qurux badan bay weeyeen laakiin wallahi biyahaas ummada dhan bay baabiyeen taas macnaheedu waxa weyn hadduu Ilaahay kugu salido you are in a trouble marka xilli daadad xoog badan ay kor iyo hoos iyo dhinacyada iyo meel walba ay ka imanayeen oo ummaddu ay kala cararayso oo cadaab Ilaahay uu soo degay yaa nabi Nuux alayhi salaam wiilkiisu u yeeray markaasuu yiri aabe irkab macana wala takun maca alkaafiriin kaalay doonta badbaadada soo fuul doonta badbaadada maxaan ugu yeerayaa waa doontii markaa lagu badbaadiyay laana dadka saaran oo dhan waxay ahaayeen jaaliyad muslimiina dad muslimiina oo Ilaahay iyo rasuulkiisa qirsan bay ahaayeen doontu saaran wiilkuna banaanku jooga markaasuu wuxuu ku yiri aabe anaha iga walwalin wuxuu yiri saawi ila jabalin ya'simuni min al-ma' aabe buurtaasaan ku carari buurtaasaan fuuri macnuhu waxa weeye yani waxaad ka garan kartaa meeshaas dhaqamada maanta da'yarteenu ay runtii leeyihiin oo ah bay'adan ay ku korayaan waa waxay ka dhaxlaan dabeecad ah inay ismoodsiiyaan waalidkood inay ka aqoon badan yihiin yani carruurtu markay ku dhalato meeshan luqadda ingiliishka iyagu male accent male xajad male say tahay uga hadlaan innagu laakiin inagu waaweyn baanu nimid maanta dhan baynu gebgablayn intaa kaliya waxaa laga yaabaa ilmuhu inay u qaataan inay kaa caqli badan yihiin kuma sheegayaan way kaa baqayaan ama way kaa xishoonayaan laakiin waa barnaamij ku rakiban wey marka wiilku wuxuu leeyahay aabe anigu waan ogahay waxaan sameynaya buurtaasaan fuulaya waan isbadbaadin karaa waa sida maanta markaad ilmaha isku daydo inaad wax u sheegto uu ku leeyahay isagoo luqadda ingiliiska don't tell me what to do ha ii sheegin waxaan sameynayo ama adoo la hadlaya wax laga yaabaa inay tiraahdo oo kale kelmadaha ay yidhahdaan maanta macnaheedu waxa weeye dhaqamada noocan ee meeshan bay'adan laga dhaxlay aynu ka hadlayno ee ayadan aan kasoo dhiraandirinayno waxa weeyaan waxay da'yartu moodaan in ay waalidkood ka caqli badan yihiin ama ka aqoon badan yihiin oo deegaankan ay ka yaqaanaan laakiin Allah subxaanahu wa tacaala ayadan wuxuu noogu sheegay wiilkan inuu khaldanaa yar aabihiina nabi ilaahay soo diro ah markaasuu aabihii wuxuu ku yiri markuu wiilku yiri buurta ku carari laa caasima alyawma min amri illaahi ilaa man raxima aabe saad mooda xaaladdu maaha aabe waxaad arkayso filmaantii aad daawan jirtay ma aamini waxani waa cadaab ilaahay soo carar meesha markay marayso ilaahay wuxuu yiri waxaala baynahum almawj fakana min almughraqiin tsunamidii hirarkii oo saa isu gagadinaya oo buur iyo bad iyo bar waxba aan ka tagin waa isagana qaaday fakana min almughraqiin meesha ku dhintay ma dhageysan aabihi wuxuu ismoodsiiyey aabihi inuu ka aqoon badan yahay
marka waxaan daayirta dhalinyarada u sheegaya laba shay baa jira oo qofka runtii burburin kara adduunyadiisa aakhiradiisana kharibi kara oo ah bay-adda uu qofku ku korayo iyo dadka uu la socdo yacni saaxiibka xun iyo bay-adda aayaddan marka waxaan ka garanay nabiyullaahi nuux calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam inuu wiilkiisa uga digo aabe bay-addan iyo waxaad arkayso saad mooday maaha saad mood socod waxay yidhahdaan shalaad dalata shaqada iga fiicnaan shubi jiray shalaad dalatay wala shubi jiray ha wuxuu yidhi aabe saad moodi ma ah aabihii ma dhagaysan kadibna wiilku saasuu ku dhintay isagoo ka mid ah dadkii ilaahay iyo rasuulkiisa beeniyey marka saasii bay-adda waxay u tahay shay runtii da-yarta ku samayn karta dhaqan gadis maskax gadis halbeega ay wax ku cabiraan oo dhan baa lumaya qodobka kale waxa weeyaan isaguna oo ilaahay subxaana wa tacaala inoo sheegay qadiyadii dhex martay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyo aabihii isagoo nebigiisu ilmo yara kolkuu hurdada ka soo kacay buu aabihii wuxuu u sheegay riyadii waxa ay ku riyo markaasuu yidhi aabe inii ra'aytu 11 kawkaba والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين aabe xalay waxaan ku riyooday ma taqaan xidigahan iyo dayaxan iyo qoraxdan dhammaantood lii sujuuday wuu faraxsan yahay marka aabihii gacantuu qabtay marka yaa bunay laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatik fayakiidu laka kayda aabe riyadan hala wadaagin walaalaha u sheegi maxaa yeelay waxun bay kugu samayn doonaan aabe wuxuu ahaa garan karaa dabciga ama dhaqanka ama waxyaabaha insaanka ku beeran waxyaabaha la yidhaha hinaasaha xasadka subxaan allah arrintani waxay xusuusinaysaa haddii caruur uu nebi dhalay walaalkoodna nebi yahay ay ka badbaadi waayeen cudurada qalbiga ku dhaca ee bulshada kala dila xasadka hinaasaha isla weynida qabta weliga adigu aamin ha ka noqon mar walba qalbigaaga fiiri waana sababta rasuulku sal lla ly slam anas bin maalik ugu yidhi yaa anas in istadacta an tumsi wa tusbix وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل وكما قال صلى الله عليه وسلم رسولك أنس من الله قلت أنس أرورتي مكان صوت توستي قبلكم مركو عمر والبقلب قاعد فيرين النظيف هي مركن النبي يوسف عليه السلام سوى المير مقونا فهم كرنا أبيه وحكار لي وفهم كثير موال رضي حمرك اللي يرد وش يدي وحاجة عنه مركان يرى قبلنا ولا شيء يسويك قف كتابته وحي يقوم كريم مجرد وأنا أساس وحلقة يا واحد تعالى بدأ ولا الله أيوه قولي اسكن عد oo istagaala oo la istusi karin oo waalidku maanta ku mashquulsan yahay iskuulka marka la aado ka uu nacba oo ku karnaa hadduu qof kale taabto kiyo soo xaydxaydan yahay maxaa walaashii laga siiya maxaa walaalkii laga siiya marka nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam aabihii wuxuu uga tegay baa ku dhacay oo riyadii markuu u sheegay walaaladii waa kuwii ceelka ku tuuray yacni waxaa qaaday cudurada qalbiga ku dhacay hinaasaa iyo waxaasaa qaaday marka xagga waxaan ka garanay in nebi yuusuf calayhi salaam xitaa isagoo yar aabihii uga aqoon badnaa iska dacid kale walaaladii la dhashay looga aqoon badnaa walaaladii la dhashay yacni aabbuhu wuxuu garanayay bini aadamka waxa ka suurtooba sidaa darteed da-yarta waxaan u sheegayay adigu asxaabta aada la socoto dadka kaa waaweyn hal mar oy eegaanba waxay garanayaan qofkaasi inuu yahay saaxiib fiican iyo saaxiib xun sida nebi yuusuf calayhi salaam aabihii uga digay walaaladii marka waxaanu nidhi haddii bay-adda iyo saaxiibka xumi ay yihiin waxa da-yarta lumin kara da-yartuna ay ismoodsiiyaan labadan shay inay waalidkood uga aqoon badan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sheegayaa may waalidkaaba kaaga aqoon badan bay-addan bini aadamka iyo waxa ka suurtoobana waalidkaaba kaaga aqoon badan marka waxaan u sheegaynay in ay mar walba arrinta u soo celiyaan waalidku